100 milyan oo lacag ah oo loogu talagalay wax ka qabashada xaaladda abaaraha. ciidamada dowladda Soomaaliya oo maanta la wareegay deegaan al-shabaab ay ka tilinayeen 13 sano dagaalo culus oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan iyo militariga Soomaaliya oo deegaano muhiim ah kala wareegay ururka al-shabaab. wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya gobolka Hiiraan iyo 60 ka mid ah al-shabaab oo militarigu ay soo bandhigeen oo maanta lagu dilay dagaalkii ka dhacay halkaasi. xogii ugu dambeeyay dagaalkan ayaan eegaynaa. sidoo kale dagaalo ka dhacay maanta duleedka magaalada Dhuusamareeb iyo ciidanka dowladda oo guulo waaweyn ka sheegtay dagaaladii ka dhacay Dhuusamareeb. wax walba oo ku saabsan xogii ugu dambeeyay dagaaladaas ayaan si guud u dulmari doonaa. warbixinadeena kala saaxiibeen waxaa qayb ka noqon doona beelaha deegaanka Galmudug gaar ahaan gobolkaasi Galgaduud ayaa hadda bilaabay inay abaabulaan beesha Mursade iyo sidoo kale beelaha kale ee deegaanka gobolkaas ayaa hadda dhaqdhaqaaq ciidan ka wada duleedka magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug. wararkii ugu dambeeyay arrintaasi ku saabsan ayaa qayb ka al-shabaab waxay amar ku soo rogeen goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho iyo al-shabaab oo albaabada isugu dhiftay ganacsiyo waaweyn caasimadda ku yaalay. haddaba amarka iyo weliba qoraalada al-shabaab oo durba Muqdisho ka dhaqan galaya. warbixin qaad cusub u sameysay dowladda Soomaaliya kadib danjiraha Shiinaha oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. warbixinayaan kaga hayaan saaxiibayaal labada dhinac waxay ka wada hadleen in ballanqaadka China ay u sameysay Soomaaliya nooc uu yahay. Mareykanka 700 milyan ayuu ugu yabahay dowladda Soomaaliya oo wax looga qabanayo xaaladda abaaraha iyo wasiir Axmed Macalin Fiqi oo ku dhawaaqay arrinkan kooxda al-shabaab. dhammaan qodobadani kuba kale ayaan ku faahfaahinta qayb ka noqon daawadeyaasheena ku xiray channelkeena YouTube-ka calaamada guduudan ee ku muuqata subscribe inoo dhig gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena gaarka ee halkan aan ku baahino. galab wanaagsan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. aan ku bilaabay dagaalo culus ayaa weli ka soconaya gobolka Hiiraan iyadoo la soo wariyay ciidanka dowladda Soomaaliya guulo waaweyn ka gaareen dagaaladan oo dhacay maanta ilaa iyo hadda la hadlina 4 galabnimo. dagaalada weli ay ka soconayaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya iyadoo la soo wariyay dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalkan oo ciidanka dowladda Soomaaliya la wareegeen deegaano iyo weliba sidoo kale magaalooyin waaweyn. wararka la gelaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sheegay in maanta ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaanka Booco oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ciidamada ayaa lagu soo warramay in gudaha u galeen deegaankan oo muddo 13 sano ay maamulayeen xoogagga al-shabaab. ila deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in wax dagaal uusan ka dhicin halkaasi isla markaana xubnaha al-shabaab ay iskaga carareen deegaanka ka hor intaysan soo gaarin ciidanka. saraakiil ka mid ah militariga Soomaaliya sheegeen deegaanka Booco oo fariisin ku lahaayeen xoogagga al-shabaab isla markaana laga soo abaabuli jiray dilalka iyo qaraxyada ka dhaca gobolka. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo howlgalkan qayb ka ahaa ayaa ugu baaqay dadka deegaanka in hubka ay qaataan ay ismuujiyaan ay la dagaalamaan xoogagga al-shabaab. ciidamada la wareegay ayaa la sheegay in gacanta ku hayaan deegaankan iyo xeendaac kale. xaaladda ayaa kacsan weli dhaqdhaqaaqyo ayaa laga dareemayaa koonfurta magaaladaasi halkaas ay ka soconayaan abaabul dagaal. Hiiraan waxaa ka soconaya dagaal culus oo ka dhan ah al-shabaab kuwaas oo ay iskaashanayaan maleeshiya deegaanka iyo weliba militariga Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay howlgaladan in lagu dilay in ka badan 200 oo ka mid ah dagaalyahanada ururka al-shabaab tan iyo markii kacdoonkan uu bilaabay. dowladda Soomaaliya sidoo kale maanta guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan waxayna dowladdu sheegtay in la dilay in ka badan 55 ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab oo dagaalkaasi ku dhintay. haddaba aan eego warka dowladda ka soo baxay. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya soo saartay war-saxaafadeed ku aadan howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya inay isku fidiyeen goobo waaweyn oo kooxda ay joogeen. war-saxaafadeed ka kooban 2 bog oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa marka koowaad loogu mahad celiyay dadka shacabka ah ciidanka hubka qaatay ee al-shabaab la dagaalamaya. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa bogaasay ciidamada xoogga dalka oo furimaha hore ee dagaalka kula jira xoogagga al-shabaab isla markaana guul weyn laga gaaray. wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in Shabeellaha Dhexe, Baay, Bakool
hiiraan galgaduud al-shabaab jab weyn lagu gaarsiiyey islamarkaana laga dilay xubno kooxdaasi muhiim u ahaa sida wasaaraddu ay sheegtay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga oo aad u dheera oo qayb ka mid aan soo koobnay waxay wasaaraddu ku sheegtay in qiimaha ku kacay howlgalladan iyo khasaaraha soo gaaray al-shabaab uu yahay mid aad u badan al-shabaabna dadkii ugu badnaa ay ku waayeen howlgalkan ugu dambeyn wasaaradda gaashaandhigga ayaa si gaara u bogaadisay guulaha waaweyn ee militariga soomaaliya iyo weliba sidoo kale dadka deegaanka ay gaareen kacdoonkan ka dhanka al-shabaab ayaa u muuqanaya mid saameyn xoog leh ku yeesha kooxda kuna sii firay goobo badan dhinaca kale duleedka magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug maanta waxaa ka dhaca dagaal u dhexeeya xoogaga al-shabaab iyo weliba sidoo kale ciidanka maamulkaasi waxaana la soo warinayaa in dowladdu ciidanka galmudug ay maanta qabsadeen deegaan muhiima oo magaalada dhuusamareeb u jira 35 kilomitir wararka ayaa sheegaya in taliyaha ururka sideedaad guutada 17aad ee ciidanka gorgor oo hogaaminaya kabtan maxamed xiirsi oo howlgalkan hogaaminaya waxa uu sheegay in ay qabsadeen deegaano muhiim ah oo al-shabaab ay joogeen marka la joogo gobolka hiiraan ee barta waa marka la joogaan ee dhuusamareeb wuxuu sidoo kale uu sheegay inay ku fidi doonaan deegaanada kale ee kooxdan ah dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Edward Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka hiiraan sindaqe oo hoos tagta dhuusamareeb caasimada galmudug asagoo sheegay in halkaas dagaal kooban uu ka dhacay taliyaha ayaa tilmaamay in howlgalka intuu socday isla markaana al-shabaab looga furtay hub noloshana lagu qabtay xubno la toogtay oo ay soo bandhigi doonaan ciidamada dowladda ayaa hadda u muuqda in guulo isdaba joog ay ka gaarayaan dagaalada ka dhacaya koonfurta Soomaaliya al-shabaab ayaa soo warinaya in khasaarihii ugu weyn oo ka soo gaaray dagaalka ay u bareereen dadka shacabka inay la galaan xiisadaha iyo dagaalada ka soconaya saaxiib yaal gobolada dalka iyo wixii ku soo kordha wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa hadduu ilaa raalli ka noqdo aan u gudbo qodobada kale ee warkeena galabnimo xildhibaan ka mid ah in 700 milyan ay ugu yaboohin dowladda Soomaaliya kaas wax loogu qabanayo xaaladda abaaraha ay ka jirta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maadaama safaaradda Mareykanka oo ay ku leedahay Muqdisho ayaa lagu faahfaahin cadadka lacagtan oo marka hore safaaraddu ku sheegtay $700 waa 700 milyan oo lacag ah oo loogu talagalay wax ka qabashada xaaladda abaaraha hay-adaha Mareykanka dhanka macluusha u qaabilsan ayaa la sheegay in Soomaaliya loo samarsiin doono kuwaas oo soo gaarsiin doona Soomaaliya dowladana gacanta loo gelin doono Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in ay macluul laga saadaalinayo qaar ka mid ah koonfur galbeed jubbada dhexe oo Jubbaland garan gobolka jubbada dhexe oo al-shabaab ay maamulaan maadaama halkaas ay adag tahay in ay gurmad gaaraan sidoo kale sida la saadaalinayo bilaha October ilaa December sanadkan waxa la saadaalinayaa in roobabkii di'i lahaa la waayo tiro keeni karta in xaaladda abaaro ay kasii darto oo dad badan nafaqa darro iyo baahi ay u dhintaan abaarta Soomaaliya ay ku dhufatay ayaa ah tii ugu daray 40 sano ee la soo dhaafay waxaa socda gurmad ee dadaalo xoog leh oo dowladda Soomaaliya saaxiibada caalamka ay wadaan ilaa 7.8 milyan oo Soomaali ah ayaa saameysay abaarta in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ayaa ka barakacay deegaanada abaartu ay ka jiraan tan iyo bishii Agoosto sanadkii hore si kastaba warbixintan ka soo baxday daqbixiyaasha ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar degdeg ah ka hor inta la gaarin bisha October oo ilaa December la saadaalinayo in roobabka gu'ah la waayo tan oo halis keeni karta in xaaladda ay macluul isku bedesho dhinaca kalena dowladda China ballanqaad cusub ay u sameysay Soomaaliya kadib markii maanta ay kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo safiirka China ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa kulan gaar ah kula yeeshay safiirka dowladda China ee u fadhiya magaalada Muqdisho kaas oo ka wada hadleen arrimo muhiim ah Xamza iyo waliba safiirka China ayaa kulankooda diiradda ku saaray xoojinta xiriirka labada dal taageerada Soomaaliya iyo China ee dhanka gurmadka abaaraha fulinta mashaariicda horumarineed dib u dhiska dalka iyo sida lagu sheegay qoraal kooban oo xafiiska Xamza ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa saakay xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha Soomaaliya ee China u fadhiya ee lagu magacaabo Mr. Flick Johnson ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal taageerada Shiinaha ee dhinaca gurmadka abaaraha fulinta mashaariicda horumarineed dib u dhiska dalka sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyay dowladda China kaalmada iyo garab istaaga ay Soomaaliya u muujisay gaar ahaan xaaladda abaaraha China ayaa u ballan qaaday Soomaaliya inay ka caawin doonto dhinacyo badan ay ugu horeyso xaaladda abaaraha iyo sidoo kale warbixino ku saabsan amniga
ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku dhawaaqay arrin muhiim ah oo ku aadan howlgalka iyo waliba dagaalka al-shabaab ka dhana wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray shir weyne muhiim ah kaas oo ku saabsan xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee bulshada rayidka ganacsatada iyo dhinacyada kala geedi socod ku ah nabadda Fiqi oo khudbad ka jeedinayay maanta wuxuu sheegay in la joogo waqtigii dadka Soomaaliyeed ay u gurman lahaayeen dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo sidoo kale beelaha ay dagaaladu ay hadda hubka qaatay al-shabaab la dagaalamaya wuxuu sidoo kale Axmed Macalin Fiqi uu sheegay in gurmad loo baahan yahay oo al-shabaab ka dhana